Assalamu alaikum. Magacayga wa Yasmin Abdi. Yasmin Yusuf Abdi Khaira. I will be speaking in English today, unfortunately, but I hope that's okay. And Abdirazak will translate what I say after for you guys. So, Alhamdulillah, we are currently in Doha, Qatar. It's July 24th, I believe. Yes, July 24th. And this conference has been nothing but beautiful. Some of the most smart people, the most successful people have been here. I've learned so much, so much. But here today, I'm here to tell you guys a little bit about how we can help the youth and empower the youth, bring technology back to Somalia. Technology is the way that all of these other Western countries are improving, empowering together. So I recently started my own cybersecurity company called Nohack, and inshallah, we're going to be bringing education. We're going to be bringing cybersecurity, software engineering, programming, and all these different things back into the country. So our goal, me and Abdirazak, Nohack, and IBS Bank will be working together. Inshallah, by 2030, 100,000 tech jobs in Somalia. You want me to say that one more time? By 2030, inshallah, with my help and his help and your help, everyone, we will be bringing 100,000 tech jobs back to Somalia. So inshallah, if there's any way I can help, again, my name is Yasmin. Please feel free to reach out to me on my socials. You can find me. And yeah, now I'll pass the mic to Abdirazak. Thank you, Yasmin. Run ahaantii sida Yasmin ba sheegtay shirkan wuxuu ahaa shir waxtar weyn ugu jiro ummadda Soomaaliyeed. Runtii ka soo qaybgalka Yasmin iyo shirkadeeda Nohack wuxuu ahaa runtii wax aad wanaagsan sida idin sheegtay Yasmin waxa dhaxmaray tafaahum bangiga IBS iyo shirkadeeda Nohack kaasoo saacidaya ama wax weyn u taraya da'yarta Soomaaliyeed runtii aad ka muhiim ugu tahay inay helaan xiraf teknolojiyadeed xirafkaasoo ka saacidi doona insha Allah inay mustaqbalkooda gaarka ku dhistaan. Waxaan isla tafaahumnay Nohack iyo IBS Bank isla tafaahumeen inaan isla abuurno shaqo iyo xirfad u abuurno da'yarta Soomaaliyeed ee u baahan taasoo gaari doonta ilaa 100,000 oo shaqo marka sanadku yahay 2030. إن شاء الله IBS iyo Nohack waxay dhaxda u xirteen inay wax u taraan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan da'yartooda gabdhahan iyo wiilasheena mudan in la garab istaago. Waxaan leeyahay oo markale oga mahadcelinaya Yasmin waad mahadsan tahay sida runtii generouska ay aad ugu dadaalaysid da'yarta Soomaaliyeed. IBS-na wuxuu noqon doonaa garabkaaga. Waxaan rajaynayaa in maalinaan ahayn aan aragno fikirkan halkan aan ku curinay oo shaqeeya aad baa u mahadsan tahay waxaan ku leeyahay dhulku waa dhulkaagii dalku waa dadkaagii da'ad yartuna waa dadkaagii soo dhawaad